kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal haddii meel walba joogtaan waxaad leenahay ku soo dhawaada barnaamijkeena faaqidada ciyaaraha fadlan haddii aad inagu cusub tahay follow inoo dheh page-ka si share garay oo meel dheer gaarsii sidoo kale YouTube-ka iyadana subscribe inoo sii saar fadlan haddii aad inagu cusub tahay haddaba aan ku bilaabay barnaamijkeena maanta faaqidada ciyaaraha waxaanu ku soo qaadan doonaa kooxda Arsenal oo markaasi ilaa 6 ilaa 7 ciyaartooy sanadkan la soo wareegaysa xil ciyaareedkan ugu horeeya waxay markaasi la soo wareegaysaa ciyaartooy aad u fara badan oo markaasi wax tar ayaga u leh siday u arkaan haddaba daawade waxaanu marka rabnaa inaan falanqeyno qaabka iyo ciyaartooyda ay la soo wareegtay kooxda Arsenal maxay ka bedeli karaan sanadkan maadaama 3 sano ee la soo dhaafay ay markaasi ahayd koox markaasi kaalinta labaad ku dhameysata dadka Soomaalida inta badan ay u bixiyeen kooxda malxiiska Premier League haddaba Arsenal ciyaartooyda sida Gyökeres oo kaleeto ay keentay Subamendi, Northgard iyo sidoo kale Mosquito cunugan lahayo difaaca hadda maanta soo galayo oo heshiiskiisa soo saxiixay oo maanta la filayo in markaas caafimaadka qaato tijaabada sidoo kale Maduki oo Chelsea laga soo qaaday si kasta ay ahaato macalinka Arteta horta Chelsea aad ugu waalan yahay Raheem Sterling oo wax matara ah wax maqabta ah ma gudba ah soo qaadayay biljuu nakabs kaaga dhahay lacagtiisu si bilo siyo maxabilka iyo mushaarka wiiglaha oo lisina inuu soo qaato waxba faa'iido uma jiro moogtaa haddii xataa oo soo qaadanaya dabcan inuu mid wax tar leh oo ka soo qaatay macna muhiim wahay hadda dukaan oo kale tood oo la soo wareegayo ay ku fiicneyd inuu markaasi ama ahaan kaga soo qaato sanadkaasina ay markaasi markuu ciyaartiisa iyo bandhigiisa u arago la qanaciyo dhaho waad ka gadanaa xataa waa si normal sida Odegaard oo kaleeto Real ama 6 bilood oo soo qaatay 6 bilood wuxuu noqday number 10 fiican waa qaaday wuxuu heshiis ka siiyay Odegaard iyo Real qaata 6 milyan laga siiyay hadda waa ka shaqeynaya dhowr sano ku soo dhaafay inkastoo kooxdu ay pub tahay ever tahay oo koox oo mara caadi baatiya noqotay awood u lahayn inay wax ka qabato because inta Arteta joogo kooxdaas wax ma qaban karayso Real inay qaato laga ma filaayo sida rajeynayno laakiin sanadkan waa fiirinayna maadaama ciyaartooy wax walba marka waxaan ka hadli doonaa ciyaartooyda imaanayso Arteta ma awoodi kariyaa inuu ku qaado horyaalka Premier League sanadkan walow koox waliba Premier League ay isdhistay Liverpool waxaan arkayay inay markaasi hadeertaan Wurtis way soo qaadatay waxay hadeertaan u soo jeesatay kooxda Newcastle strikerkooda Isaac ciyaartooyda kale Manchester United Mboma ay rabtaan inay soo qaadato Cunha hore u soo qaadatay soo marka waa isdhisaysa ciyaartooy kasta City sida uu aragna ciyaaryahan fara badan ay soo wada qaadatay sanadkan ayada naftirkeeda dhammaan marka Big Six-yada Chelsea say soo dhisto waa aragteen oo koobka ay qaaday يعني Tottenham sidoo kale waa isdhisoosa soo marka kooxaha Big Six kala dhaho Premier League dhamaantood way soo dhiseen yaa marka qaadi karo asleedahay sanadkan horyaalka sanadkan marka koox walba diyaar u tahay heegin ugu jirta marka Arsenal xilli waxa soo martay 3 sano la soo dhaafay 2 sano kamid ah oo labadii sano hadda labadii horyaal hadda ugu dambeysay ayadoo ay kooxaha ay ka wada jiifto City way ka jiiftay kooxdan xilli ka jiiftay horyaalka kale tood ugu dambeeyay kan hadda dhamaadkii ka horeeyay City caadi ugu jiiftay kan sidoo kale way ka jiiftay Liverpool way ka awoodi kartaa xitaa inay ka qaado laakiin Braje iyo kulmada laga rabay inay badiyana awood u yeelan waayeen haddaba daawade haddii aad tahay taageero kooxda Arsenal u dhinta ama daba u taageera maxay adiga kula tahay ma qaadi kartaa kooxda Arsenal isleedahay haddii aad يعني أي أرسنال كيسة يوكريس وكلا عيارتوي فربضا كيتو وحكلا كوا كلا هدرتن وهذا حوسي لمن أنتي مكتها جذيت كريسة أما يفرتكوا في قد السنة كانوا إذن مركا لقيتكوا بنجامين ساسكو أي أود ويدي ويوكريس أي كدربت مركا نسيدو كلانتو أنتي كهرتو لهم هذا مركو أهاري لبع عيارتوي رودريجو إنزي كريستال بالاس وديلو رودريجو أو كوحدة ريال مدريد وديلو marka labadaas mid way soo qaadanaysaa laakiin labadoodu isku keeni karayso hadii ay dhacdo xataa labadoodu xataa isku keento ama labadaas mid ay soo qaadato Arsenal maxay qaadi kartaa isleedahay ma awoodi kartaa inay championka ama qaado ama horyaalka qaado ama xataa FA Cup ama Carling Cup mid ay qaado hadii sidoo kale inta aad tahay daawade ku xiran barnaamijkeena jacal in barnaamijkeena mar walba horu dhaqaaqa hadaba fikirkaaga
inoogu soo bandhig commentiga si aad u aragto kooxda Arsenal waxay tiri karto ama waxay kusoo kordhi karto Premier League sanadkan. Arteta ma noqon kartaa sanadkii ugu dambeeyay oo kooxda Arsenal hogaamiye haddii intan ciyaartoy loo keenay oo wax ku qaadi waayo. maadaama aragno Maresco oo sanadkii ugu horeeyay dhowr koob oo qaaday asoo dhahay waliba anaga awood ma leeyahay inaan wax qaadno ama inaan waxayno, laakiin haddii nasiib aan leenahay haddii championka uu soo baxno top 4 aan soo galno. marka top 4 waa soo galiyay, wuxuu qaaday Conference League u qaaday, wuxuu qaaday Club World Cups ka u qaaday, waa nin banaanka ku dhacay wax qabadkiisa iyo wax walba maanta. marka Arteta 7 sano joogo kooxda oo sanadkii 7aad uu bilaabanayo, haddii uu sanadkan wax qaadi waayo intaas ciyaartoy hadda loo keenay, haddii uu qaadi waayo misleedahay boorsiisa baranka u taal. daawada aad baad u wanaagsan tahay saaxiibkayga qaaliga ah. haddii aad markaasi barnaamijkan ku xiran tahay fadlan si share garay oo follow garay, commentiga iyo laagana waa dhankiina. wixii fikirkaaga ahna noogu reeb qaybta hoose ee commentiga. aad baad u mahadsantihiin asxaabteeda qiimaha qaadaya mudan. haddaan ugu cusubeen noola joogtayna fadlan si share garay, commentiga iyo like-tana noogu dadaal. tani inta dib ugu kulmi doona barnaamijkeena xiga waxaa la leeyahay waa saaxiibkeen Maxamed Abuukar Baariyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.